jacaylku waa dareenka ugu wanaagsan ee ay lamaane wadaagaan. xilliyada qaar waxaa dhici karta in sanooyin badan kadib ogaato inaad ku noolayd dhiso dhalanteeda oo magaceedu yahay jacayl. sidaa darteed su'aasha isweydiinta leh ayaa waxay tahay calaamadaha lagu garto jacaylka dhabta ah. jawaabta su'aashan ayaan muuqaalkeena kaga hadli doonaa. in la is run sheego. calaamadaha ugu muhiimsan ee jacaylka dhabta ah waa in labada qof ay isu sheegaan sidii qof walba dhanka kale u farxad gelin lahaa, oo uu dartii wax walba ugu xorin lahaa, daacad u noqon lahaa, runtana u sheegi lahaa markii ay lagama maarmaan tahay. isfahan. waa in labada dhinac ay si wanaagsan isu fahamsan yihiin oo ay arrimo walba isla ogol yihiin, iyo in dhinac walba uu ka fogaado inuu dhinaca kale xakameeyo oo uu ra'yigiisa ku qasbo. arrin kasta waa ay ka tashadaan si ay ula gaaraan go'aanka ku habboon. isa saamaxaad. in dhinac kasta uu fahmi karo dhinaca kale caradiisa. waa inuu isku dayo inuu la macaamilo oo isku dayo inuu dejiyo dhibaatooyinkana uu xal u helo, ee aanu meesha uga harin xiriirkana uu burburka ka dhowro. calaamadaha ugu muhiimsan ee jacaylka dhabta ah waa in lamaanuhu ay hore isu riixaan oo mustaqbalkooda si wadajir ah ay ugu fakaraan. niyad jebinta iyo dulqaad yaridana halkan boos kuma lahan.